laba markaad eegto mararba waxaan istiraahdaa dadkeennan Soomaalida qaybo qaab dhaqankoodii Ilaahay baan leenahay reer bani Israa'iil laba sifay leeyihiin cidda ugu badan ee khayr dad ugu yeedhay ee nabiyo laga soo diray waa iyaga Israa'iil waa macnaheedu waa magacu Nabi Yacquub leeyahay waa dadkii Nabi Yacquub ka soo farcamay intii ka dambeysay ambiyadii la soo dirayayna inta ugu badan reer bani Israa'iil baa laga soo diray sabta macnaheedu waxay ka dhigan tahay dadka khayrka ugu yeedhayay ee Rabbi dadka ugu yeedhayay jidkiisa ee iimaanka iyo tawxiidka fidinayay iyaga ayaa u badnaa dadka kuwa alleynayay ee la dagaalamayay ee dabagoynayay in iyaga ugu badnaa ambiyadoodii iyaga alleynayay Fircawn markuu duleystay oo wiilashii iyo gabdhaha wiilashana gowracay gabdhahana daynayay intuu adoonsaday si dameeraha u raranayay Ilaahay Nabi Muuse u soo diray calayhi salaam indhahooda hortooda baa Fircawn nabiye lagu halaagay Muuse iyo iyagiina Ilaahay soo badbaadiyay markii 70 rajulan limiqaatina ima markii la yiri gadaashii dibi bay caabudeen hada ilaahukum wa ilaahu Muuse bay yiraahdeen waa niman dhinaca markaad ka eegtana dadka ugu dhibka badan oo ugu khayrka daran ee ambiyadii xataa laaya kuwa khayrka ugu yeeran laaya wayaqtuluuna alladhiina ya'muruuna bilqisti min annaas wa iyaga markaad Soomaalida eegto waxaad arkaysaa reer Soomaaliyeed oo burcada ugu badan iyo waxa uu xalaynaya iyaga weey dhinaca kale markaad eegtana wadaadada iyo kuwa dugsiyada furaya ee khayrka sheegayana ugu badan waxaad leedahay war qolada reer bani Israa'iil maxaa ka dhaxeeya dadka reer bani Israa'iil maxaa ka dhaxeeya xagga hadaad tagto khayrkiina safka hore weey xagga sharki hadaad tagtana safka hore weey shuqulkii reer bani Israa'iil saasoo hawligood